wariyaasha Soomaaliyeed oo muddo dheer dhibanayaal u ahaa handadaad uga timaada garabyada hubaysan ee dalka tobanaan hal doorana ku waayay dilal qorshaysan oo ujeedkoodu yahay in warbaahinta lagu aamusiyo ayaa hadda waxa dagaalka ka dhanka saxaafadda ku soo biirtay dawladda Farmaajo oo ah tii ugu xumayd ee xorriyadda wariyaha iyo warbaahinta sida ku cad hadal ay ka dhawaajiyeen madaxda sare ee wadanka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlayay shirkii dastuurka ayaa yiri warbaahinta Soomaaliya dalka ayay duminaysaa hadalkaas oo muujinaya cadaawada uu hayo wariyaasha cadceeda iyo dhaxanta u taagan soo gudbinta hadallada madaxda ee Khayre laftigiisu uu ka mid yahay oo inta saacida waa media oo hadda noogu darsoomeen social media ee noogu darsoomeen media waxna waa dhisaan waxna waa dumiyaan waa xaqiiqo weyn waxaan aan rabaa inaan xuso kuwa ugu waaweyn magacooda ma rabo inaan sheego walagood waxay ka hadli jireen wax dhibaato ah waxay ka hadli jireen waxbaa la dilay waxbaa la dhibaateeyey walagood kama hadlaan wax wanaagsan ama hal tallaabo dawladda ee qaaday kama hadlaan macnaheedu waxay tahay shacabka iyo maalin walba waxay ku jiraan sidii ay u qabjabin lahaayeen ama rajada uga qaadi lahaayeen waxay ka hadlaan waxa ay shabaab samaysay waxay ka hadlaan waxa dadka qalbi jabin kara waxay ka hadlaan waxa dawladda iyo shacabka iska horkeeni kara madaxdii wax lagu dhaleeceeyo hadda waxa weeye waa runtii waa dadan qayb ka ahayn ee horumarka iyo dhismaha dalka culays dhaqaalaha haysta xaqiiqatan maxaa yeelay waxay ku jiraan mortgage wax la yiraahdo deeman iyo ku jiraan marka waa inay sensational ka dhigaan idaacadii wax daran inay sheegaan si loo dhageysto unximaayaan dadka Soomaaliyeed iyo meesha ka yimaadeen unximaayaan waxa mas'uuliyadda kaliya ka saaran tahay waxay tahay caa'iladooda bas iyo baabuurka xunka ah ee wataan deenka ah madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre oo ah mas'uuliyiinta ugu sareysa wadanka waxa afkooda ay ku saxiixeen dariiq lagu banaysanayo tacaddi walba oo loo geysto warbaahinta hadalladan guruucan ee marna aan qaban wariyaasha naftooda horayaasha waxa sabab ah tiro yar oo kamid ah warbaahinta oo u xishay dhaqaale ay siiso dawladda Farmaajo si ay ugu baahiyaan wararka propagandada iyo beenta oo qaarkood lagu liidayo sooyaalka taariikhda dalka iyo madaxdii hore ee wadanka u soo shaqeeyay intaba haddii wariyaasha Soomaaliyeed ay qoorta hoos u rogtaan oo aan laga daba tagin hadalka Khayre iyo Farmaajo waxa dhici doonta in daadinta dhiigga suxufigu uu noqdo mid bannaan oo ku dhaqan galay xeer madaxweyne